ummadda Soomaaliyeed aan rabaa markii mustaqbalka la yiraahdo muxuu Xasan Khayre ku soo kordhiyay shaqada wadankan kaliya hal mid in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ayuu soo hor istaagay runtuuna u sheegay hatta haddii ay kalifayso run sheegiddu inaan shaqadayda ku waayo diyaar baan sidaa daraadeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sidaa daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad wadankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantiin midaan aqbalayno ma ahano wallahi waa dhaarto aqbali mayno haddii waxyaalo kala jiraanna reality-ga ha laga hadlo wallahi aan aqbalayno أخوك فرقنا هذا الشيء هذا الكاغل اللي بيجيبه بارلمان كأفضل وزيرة فاي وزير حلمان فاي بارلمان كأفضل لفريسو هذا الوحارة وشيء كفاي والله أنتحيي والله أنتحيي أجدا والله أنتحيي فريسو وعلى قادمنا إسرتاك Sorry. قرأت أرنك محاقاة بنا كل وزيرك علماء وزيرك أمنية وحاقاة بنا دالنك الإرادة وحاقاة بنا حسين إيدو وحاقاة بنا الملانة بميسان تاجر وبرلمان تطلق وحمليات وحاجزوا إلى حرشان فريستا اللبانة وحن كدور إلى وحاسبنا وبروسس كي دون شوري كاسبنا عن جلا أنا أمرنا من بعد تنفسنا الله فريستا فريستا قيلا محبوب كيني من سالة فيري عدد الشيء فيري وزيرا فريستا وزيرا الشيء عدد القرار الرصاب كأي بقرار آدم شرع القرار الرصاب كأي بقرار فريستا وزير فريستا الرصاب كأي بقرار شرع القرار والاستاك شطر القرار وحي كبر شيء يجمع قارئه فريستا أنا ما أقول أنا وزير متين فريستا لبروقوس جعلو لسكو حمتانا هيني يبان مالي الدنيا لكن كام فلاني أني بوقت ما سمعنا سببت هذه لهاينا سيساك انتاد كبيسو سيدان تونا يقرأو تانينا وايا بمتاسات كنتين تانينا وايا بمتاسات كنتين عدالة والله dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo laga sugayay go'aanka ah in ra'iisul wasaaraha la ceyriyay uu aqbalay in kale ayaa war rasmi ah soo saaray
bayaan lagu daabacay filan Soomaaliya ayaa lagu bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa soo gaartay go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida kala noqdeen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. madaxweynuhu waxa uu muhiim u arkaa midnimada hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan marxaladda aan ku jirno balse asagoo oo gudanaya waajibkiisa dastuuriga ah tixgelinayna awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka waxa uu aqbalay go'aanka golaha shacabka. kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay'adaha sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarka la sameeyay ilaa iyo haatan si taa looga daba qabtana waxaan go'aansanay inaan tixgelino codka golaha shacabka oo ah hay'adda aasaaska u ah qarnimadeena. madaxweyne Farmaajo waxa uu si degdeg ah u soo magacaabayaa baa lagu yiri bayaanka ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad dalka ka saarta marxaladda kala guurka ah siina xoojisa adeegyada bulshada ee dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu uga mahad celiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre howlgalnimadii uu muujiyay muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqayntii wanaagsaneed ee uu la lahaa hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo u rajeynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan. isagoo xafiiskiisa jooga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayuu ku dhawaaqay in mudanayaasha golaha shacabku ay kalsoonidii kala laabteen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. gudoomiye Mursal ayaa sheegay in 170 xildhibaan ay ogol ugu codeeyeen halka ay diideen 8 mudane isla markaana aysan jirin xildhibaan ka aamusay sida uu sheegayo afayeenka golaha shacabka. guddoonka markuu arkay qodobka 69aad faqradda 2 xarafkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay'adaha dowladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadku 2020 dhamaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti u qaadida iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ergelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qeyb qaataan ama qeyb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54aad sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13aad faqradda 3aad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantiin
wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kana mid ah mudanayaasha golaha shacabka oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in guddoonka baarlamaanka uu sharci darro ku dhaqmayo kalsooni kala noqoshada xukuumaddana aan loo marin waddo sharci ah. shacabka in saawlo socotaan ummadda Soomaaliyeed waxa leeyahay halkan waxa ku qoran ajendaha maanta ka doodista doorashooyinka ku qoran annaga xana helnay in guddoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yiraahdaan xukuumaddu way dhacday taasa maanta halka u taagnaan ka doodeynay waxaan gudoomiye aan kula hadalno aan fadhiisano ajendaha noo sheeg doorashooyinka wuxuu ku saabsan yahay waa ajenda aan oo wuxuu soo qoro falska ah oo aan waxba ka jirin markan ajendihii aan dhahnagala hadal gudoomiyihii uu naga adeegay wuxuu alla qadar waxaana sharciga wadanka ama adduunyada aan ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo kamid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda motion laga keenin oo wax cadeen lagu haynin in xukuumaddu waa dhacday waxa ugu fiicneed gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay gurigooda iska jiiftaan ee waa dhacday uu yidhaahdo marka hadda waxaa marqaati ka yahay kaamirooyinka ay joogeen ee life la galaya xukuumaddu waa dhacda la dhahayo ana motion laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin oo xukuumadda marka la eedeeyo inay isdifaacin inuu gudoomiyaha maanta waa aragtaa aayadaha quraanka marka lagu furo hadalka ugu ku xigay waxay inuu yiraahdo xukuumaddu waa dhacday marka taas waxaan ogsoonahay in qaran dumis uu yahay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka marka ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay inay u jeedaan waxaan annaga mar walba xukuumad ahaan aan leenahay aan sheegnay wasaarahan uu sheegay in doorashooyinka waqtigeeda ay ku dhacaan sababtoo anaga wasiir amni ahaan xil ay iga saaran dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan in doorashooyinka waqtigooda lagu qabto in doorashooyinka aan waqtiga loogu talagalay 8 February madaxweynaha la doorto waa dhici kartaa farsamo iyo wixii la doono farsamo waa la aadi karaa wixii technical ah delete technical du yimaad waag Sheekh Shariif oo yimaad madaxweynaha Sheekh Shariif xasan Sheekh labada bixlabaan ahay waqtiga dib ugu dhacdo waxba laga ma qabo laakiin 2 sano extension la qaadaha marka waxaan ka dhiidinay waxaan u shaqeynaa ummadda Soomaaliyeed aan nahay annaga wasiirne uma jirnin laakiin waxaan rabnaa wixii xaq ummadana helaan dalkan waa inuu doorasho aadaa doorashadu waa taasaan laga shaqeynaa waqtiga loogu talagalay doorasho aad doona haduu Ilaahay yiraahdo qofkii ku taamay inuu 2 sano ku darsado sida maanta xukuumadda ay ka dhiman tahay 3 bil 4 bil gudaheeda xukuumadda la rido xukuumadda la soo dhisaa taas suurtooy mid ku fikiraya waxaan leeyahay iimaanka Ilaahay ku gelsho ma dhacayso mana dhici doonto waana maastiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guddoonka baarlamaanka wada extensionka golaha shacabka wado guddoonkan hormuud ka ah taasna dhici mayso dalkan doorasho aada waqtiga loogu talagalay doorasho ku aada doorashadan si wada ogol ah dowlad goboleedyada xubinta ka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaa laga rabaa dalkan doorasho inuu aado marka guddoonku waxaan leeyahay maanta nasiib daro waay wax taariikhda baalmadow ka gala waay in ayadoona hal xildhibaan hadna ayadoona ajendaha oo ku jirin xukuumadda xilka noqoshada ayadoo intaas lahayn inuu yiraahdo guddoonka xukuumadda cod u qaado waa wax la yaabo xildhibaano kale ay gadameyn doonto waana mahadsantihiin laakiin xildhibaan saad wasiir maxaad u doodi weyseen oo aragtidiina waxaad qabtaan maadaama uu guddoonku ogolaa maxaad ugu istaagteen golaha hoggaanka waxaan ogaa dooda haddii la furnaan saana ku dhimaaleed halkan waxaa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dhacdo kuma dhigin intaan u rabin marka waxaan annaga u doodeynay aan doodana ahayd inuu warkiisa toos u yiraahdo oo alla ma hadiis waxaan ka filayno toos u yiri marka intaan ahayd marka annaga inaan qaldan ha ogaadaan sharciga aan hogaansanahay waxaan u doodeynay intaas ahayd tiinu yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummadda Soomaaliyeed inay dib u noqoto ma rabno in hore loo socdo la rabaa insha Allah biidnillah kariim waxaan ka shaqeynaa dalkan doorashadiisa oo aad lahayd si ummadda Soomaaliyeed kalsoonata 4 sano kastana waxaa ka dhaco dalkan 2000 ilaa hadda 4 sano kasta doorasho ka dhacdo doorasho dhacaysa biidnillah kariim xukuumaddu extension ma ogolo extension ma ogolo xukuumadda
horena ra-iisul wasaaraha u sheegay haddana waa ku celcelinaa xukuumadda ma ogolo xukuumadda xasan cali kheyre ma ogolo extension doorashaad dhacayso doorashaadkay ku dhacayso madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaankaba si kale doorasho hal qof iyo hal cod ma dhici karto guddiga doorashooyinka halkaanay timid xalimi yarey waxayna tiri guddoomiyaha doorasho waxaa u baahnaa waqtigana ma caddo 13 bil sheegatay iyo 9 bil wax cad male qalabka diyaar ma ahan marka taas mar inuu gudaha sii galo waa mahadsantihiin waxaa kuu furan inaa hadashid hadalkaaga la dhegaysto baarlamanka afduulin wasiiraa tahay ogow xildhibaanaa tahay baarlamanka afduulina fariiso hadal waxaa waa sheegi kartaa waa la ansixiyey waxaa la ansixiyey ajandaha waa la ansixiyey fariiso waxaan u qaadanaynaa ishortaag sortaagtay ka qalataa arrinkaas waxaa qaadi doona kow wasiirka amniga waxaa qaadi doona daale ninka la yidhaahdo waxaa qaadi doonaa xuseen iido waxaa qaadi doonaa xildhibaanada meeshan taagan meeshaan waa baarlaman dadka oo dhan way hadlayaan waxaa idin furan inaa hadashaan fariista xildhibaanada waxaan ka doodaynaa waxaa socda waa processkii doorashooyinkaa socda waxaan u jeedaa amalaya nin baa dhaqankusana alla fariista qaylana waxba ku keeni maysaana feri waxaan idin sheegaa feri wasiirada ha fariistaan wasiirada sharciga idin qabanaya ee rusaabka idin qabanaya aadan sharciga qabanaya ee rusaabka qabanaya fariiso wasiir fariiso ee rusaabka idin qabanaya sharciga idin qabanaya oo isoo istaag shaqada golaasha wixii ka qadsha idinkaa qaadi doona fariista xildhibaan ka dhow adiga wasiir natiida fariiso midaan aqbalayno ma ahano wallaahi waa dhaarto aqbali mayno haddii waxyaalo kale jiraanna realitiga ha laga hadlo wallahanan aqbalayn odayaasha iyo waxgaradka ugaasyada nabadoonnada salaadiinta suldaamada dhammaantood waxaan aada uga xunnahay oo wax lala yaabay ah awaluhu wixii ka dhacay maanta aqalka baarlamaanka oo aanan dastuur ahaan marka la yidhaahna aanan sax u arag waxay aan ka digaynana aad u moodo in meesha laga hurinayo taasoo ah khalad aad u weyn oo dalka iyo dadkaba in burbur lagu horseedo ay meesha ka muuqato taasna midaan aqbalayno ama aqbali doono maahan aayadaha qur-aanka markii la furay oo laga furay meesha in guddoonkii baarlamaanka inta istaago oo yidhaahdo xukuumaddii waa dhacda dowladdiina waa la riday haddii saasu dowladdu u fududahay adiguna ka lugee guddoomiya meesha hadde waxba kuuma yaalaan dalka fawdaad gelisay colaadaad gelisay dhibaataad gelisay sharcigana uma aragno waxaan leenahay oon ka digaynaa in dalka iyo dadkaba xasiloonidooda lagu hayo inaan dastuurka la baalmarin constitution uu leeyahay dalku yaan la baalmarin inaan la baalmarin baan annagu aan leenahay oon ku adkaynaynaa weliba waxaan leenahay waxaa u dhiman dowladda waa 3 bilood in ra-iisul wasaarihii qaranka la yidhaahdo iyo dowladdiisi waa dhacday goormaan lasoo dhisaa dowlad
waa laga qaadi karaa ra-iisul wasaaraha xilka waa laga qaadi karaa laakiin waa goorma sharci ma tahay dastuuri ma tahay ma sharcigu gacantooda kuma jire dalka iskale waa wada naqaanaa dastuurkana waa wada naqaanaa sidaas darteed waxaan leenahay fowdada iyo maaragtay burburka iyo in xasilooni xumo dalka loo horseedo aqbalayno ma ahano wallaahi waa dhaarta aqbali mayno haddii waxyaalo kale jiraanna realitiga ha laga hadlo wallahanan aqbali mayno dalkana male 2 3 4 ma ay leh soomaaliya iskala dalka aqbali mayno waa in si sharciya lagu wada shaqeeyo ama lagu kala tago dalkan dowladu kama jirto la yiraahdo oo la wada baxa meesha laakiin aqbali mayno waxaan dastuurka ku ol oo constitutionka ku ol oo dalka iyo dadka aan dan u hayn war intaas ma qaadanay barnaamijkan hadda laga dhawaajiyay ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka soo yeeray maanta runtii wax loo fadhiyay maahan dowladdan hadda dhisan ee Soomaaliya waxaa lagu ammaanayay dowladdii u khilaafka yareeday ahayd dowladihii ka horreeyay ra'iisul wasaareyaal badan isbedeli jiray iyo madaxweyne kasta ra'iisul wasaare hadda magacaabi jiray dowladdan waqtigeedii waa dhammaaday xilli la isbedelay baaba iyadoo dhammaadaba hadda xilligii ka dhammaaday baarlamaanku waa kasii horeeyaan qaybta fulinta 3 bilood wax ka yara oo horay xilli la iskhilaafo ama xilli la yiraahdo waxbaa la ridayaa maba la joogaba goorteedba maahan waxaan leenahay qof walba oo diyaar garoobo sidii uu u soo noqon lahaa oo loo dooran lahaa oo wax u dooran lahaa ma jirto wax maaragtay maanta ku habboonna ma ahan inay dowladdu hadda tiraahdo waxaan ridaynaa ra'iisul wasaare xilli ra'iisul wasaare kale la magacaabeen oo lamaba joogo xilligii baaba dhammaadayba waxaan leenahay markaas sideeda loo daa baarlamaanku arrintaa maanta kasoo yeertay sax maaha runtii mana ku faraxsanin dowladdan waqtigeeda ha dhamaysato oo ha u diyaar garoodo doorashada soo socota waxaan is leeyahay waxaa meelaha laga yeerayaa cod iyo qof iyo cod wax badana lagu celceliyey oon ka maqalnaa maaragtay baraha bulshada iyo idaacadaha waxaan is leenahay Soomaaliya suuragal ma ahan xilligaas haddii aad sidaad doon lagu weydana sidaad ka badweydaa la yeelaa baa la yidhi doorashadii dadbaneed ee la soo maray haddii wax laga bedelayo iyo haddii iyadii lagu soconayaba inayan hurayn baa muuqata waqti kororsina ma soconayo haddii la isgiriifo ummadda la isku garan waayo oo nin waliba dan gaara ilaashado gooni wax u doono gobonnimadii Soomaaliyeed waxay ku dhici daraftii caabeede gudnimada wallaan laga dhaxayn dooriya ayaane dadweynaha wixii laga gadi lahaa tala ku soo gooyo raggii asaas lahaa maanta waa kuwa leh baarlamaankii baa is haystay oo dharbaaxada iyo kuraasi la isla dhacaya markaan saa u dilayana saasay ahayd waxa weeye waxaan u sheegayaa baarlamaanka Soomaaliyeed Soomaalidu waxay ku maamaadaa umusha wixii u dara ilmaha u dara wixii shacabka u dara ma idin kala idin dara joojiya fowdada maanta maalin khilaaf maaha madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taariikh hal mida taariikh ku lahayd maantana cimri tagad xeeb ku jisan anigu ilaahay baan ka xabsanayaa nina ka xabsan maayo madaxweynaha keliya aan weligii ra'iisul wasaarihiisa iskhilaafin bada 3 bilood ayay ku hartay maanta la leeyahay waa la iskhilaaf waa maxay waa cimri tagad xeeb laguma jisano Soomaaliya hamidoodu Soomaaliya ay israacdo